asalaamu calaykum saaxiibadeeda qaaliga ah meel walba aad joogtaan. waxaan rajeynayaa inaad caafimaad qabtaan. kusoo dhawaada janalkiina Sucaada Samaara. haddii aad nagu cusub tahay inoo saar subscribe si aad noola socoto fura gambaleelka. haddii aad horey noola joogtayna soo dhawow. maanta waxaan u weecanaynaa dhankii ciyaaraha. dabcan waxaa jirto dood aan soo dhigay barta aan ku leeyahay baraha bulshada ee Facebook ee ku aadaneed dabcan kooxaha Manchester United iyo Arsenal. intaan doodaas aadin waxaa jirta horyaalka Premier League dalka Ingiriiska inuu maraya meelihii ugu xiisaha badnaa. kooxo qaar ay ka dansan tahay, kooxo qaarna ay u shidan tahay. markaan eegno kooxday u shidan tahay ama shumaca u shidaysa Premier League waa kooxda Liverpool oo ku hogaaminaysa 67 dhibcood kala sareynta horyaalka Premier League dalka Ingiriiska. kooxdan waxa ugu dambeysay inay ku guuleysato horyaalka Premier League dalka Ingiriiska waqti hore, waxayna baadigoobaysaa in sanadkan ay qaado koobkaasi iyagoo markaasi aad u dhaarsan. welina waxaa la la'yahay koox ka badisa ama jibisa ambiitinka ay ku hogaaminayso horyaalka Premier League. Liverpool way u shidan tahay, laakiin kooxaha ka dansan tahay ayaan soo qaadanay waana kooxda Manchester United iyo sidoo kale Arsenal. haddaba dood aan soo dhigay barteeda Facebook waxay ahayd maxaa ka qaldan ayaad isleedahay kooxaha Manchester United iyo Arsenal. dad badan ayaa arahdooda ka dhiibtay, saaxiibo badan ayaa markaasi ka soo hadlay, laakiin waxaan soo qaadan doonaa qaar ka mid ah saaxiibada waxyaabaha ay soo qoreen. siday u soo qoreen ayaan u akhrin doonaa. asxaab badanna way soo kaftantay, inkastoo aan soo qaadan doono kommentiyada markaasi anshaxaysan ee asxaabteedu ay kasoo dhiibteen, oo dabcan asxaabta igu taxanba dhammaan si anshaxaysan ay usoo hadleen. waa mahadsan yihiin, waana kaga mahad celinaya sida wacan ay mar walba i ixtiraamaan. si lamida ayaan anigana u ixtiraamaa. saaxiibka ugu horeeya waa Saacid Cali. waxa uu leeyahay Manchester United ma haysato hal abuur qadka dhexe iyo weliba 9 buuxa oo halisa oo laga cabsado. ma fahantay? Arsenal dhibaatada haysata waa difaac la'aan, qad dhexe la'aan, weerarka waa beelo, macalinkana waa okay. qoraal walbo saaxiibada siday u soo qoreen ayaan u akhrin doonaa. Saacid Cali aada u mahadsan tahay. boqorka farxadda Abshir Boss waxa uu ku soo galay Manchester United madaxa ayaa iga xanuujisay yaaqay. suuqa wuu furan yahay, wax leenoo keena kaliya Bruno ayuu yiri, oo dabcan uu ula jeedo Bruno Fernandes, iyo hal weerar oo biti ah noo keena bis, iyo goalkeeper-keena amaahda nooga maqan. macalinkana markuu koox yar arko wuu barxaa. yaab ani marnaba si may nagu noqon rabtaa. yahoo shuushow bax kaca oo kaca United-ka kaca yaa qaysaan xal ma ahane hurdada ka toos ayuu yiri. aada u maasantahay boqorka farxadda, adigaa waa farxad ka samaysan. Cabdiraxiim Nuur Cusmaan waxa uu leeyahay waxba nagama qaldana haddaan nahay Arsenal, balse waa kubad midaan, mar way ku saacidaa marna kuma saacido. hallow Arsenal fans ayuu yiri. loof ayuu soo raacsiiyey. aada u maasan tahay Cabdiraxiim. Imaan Cabduqaadir Ma United wax ka qaldan ma lahan, laakiin nasiibka ayaa ka maqan. in uu nasiibka saacido ayaan u rajeynayaa. dhinaca kale Arsenal iyo weliba dahabigeeda Gabriel Martinelli ayay kala jeedaa. bandhigooda qurxoon inay sii joogteeyaan ayaan iyaguna u rajeynayaa. aada u maasan tahay. Cabdiraxmaan Gaaxmaal Ma United ciyaartooy la'aan dhanka weerarka ah iyo qadka dhexe ayaa ugu darnaatay, iyo tababaro la'aan ayaa isugu darsan. Arsenal laacibiin weeraryahano way joogaan, difaac liidasho iyo falsafada ciyaareed la'aan baa haysata ayuu yiri. aada u maasan tahay. Xaliye Xuseen Faarax haddaan ka hadlo ayuu yiri, ama haddii aan ka hadlo kooxda aan difoosaha ama taageero u ahay ee Ma United, waxaa ka qaldan weeraryahan, dhax difaac dhammaystir iyo weliba tababare ma haysato. marka hal dhax, hal difaac, hal weerar iyo new tababare ama tababaro cusub waa hubaal waa guuleysanay ama way guuleysanayaan ayuu yiri 100%. aada u maasan tahay. saaxiibo badanaa jira sidoo kale soo kaftantay, aadna iga qosliyey. waxaa ka mid ah Axmed Shariif. maxaa ka qaldanaa lahaa? waa tacbaan labaduba.
aada u mahadsan tahay cabdinuur warka waxa uu leeyahay sucaada samaara anaa ka maqan ha isoo gataano u sheeg difaac bir ah inaan ahay u sheeg waayahay haddama arsenaalaa ku gadanaysa mise manchester soo kala caddee cabdinuur warka dabcan waxa uu yahay taageero liverpool sidaan jeclahay oo ku salaama maxamed cali shanle waxa uu leeyahay sucaada samaara arsenaal ayaaba fiican marka loo fiiriyo ma united kooxdaas waayaheedii way soo qaadatay ee iska dulqaata 24 sano ee soo socoto saan ayaad ahaanaysaan waa ballan ka ayuu yiri aada u maasan tahay shanle axmed cumar waxa uu yiri ma united maxaa ka qaldan arsenal ha ku darine mala waa taageero arsenal aada u maasan tahay axmed cumar cabdiyare waa dabcan farsameeyaqaan wax badanaan isla soo shaqeynay xilligii gool fm aadan ku salaama walaalkay waa wiil arsenal taageero waaba ka muuqataa arsenal waxba kama qaldana ileen badis iyo badis la-aan dhib uma aragno laakiin reer ma united ayaad moodaa in arsenaalshii kaba dareen oo ilmo xitaa dhibcahoodii ku xisaabtamayaan yaab warkan macalin ma ahane iska raacdeeya ee timo tuula falaanigaaga meesha hala keena sucaadeeya aada u maasan tahay hadda falaani waqtigiisii yaa filinkiisii eeyaa cuno baa la dhihi jiray asxaabta kaftanka falaani filinkiisii eeyaa cuno shiinahu ku raaxaysanayaa saaxiibo badanna waxay weydiiyeen falaani iyo aniga wax naga dhexeeyo waa soo sheegi doonaa aada u maasantihiin guule maxamed cabdi waxa uu yidhi dembi ayay galeen hadda ka hor ayaa laga jarayaa hadda maxay tahay dembiga guule aada u maasan tahay axmed ceynab rogcaddaa saxaafadeed macalin saxaafadeed aadan kuu salaamayaa wax ka qaldan ma lahan waa sidii ugu fiicneed samaara ayuu yidhi aada u maasan tahay axmed ceynab aadan kuu salaama ustaad dabcan liverpoola taageertaa waan ku fahmayaa sidaa darteed yaa waxaa leedahay sidaan ha lagu daayo maadaama kooxdooda ay qaadayso horyaalka premier leaga dalka ingiriiska waayahay intaas waxay ahaayeen saaxiibadii markaasi commentiga aan u aqrinayay barteeda markaasi facebooka kusoo dhiibanaya araahdooda dad badan ayaa kasoo dhiibtay laakiin intaas ayaan soo xushay waan jeclahay asxaabta kalena in markooda xiga doodaha aan soo dhigo barteeda facebooka in markaasi iyagana aan u aqri doono oo dabcan ay noqon doonto mid taxana ah waxyaabaha barta aan ku wadaagno ee facebook aan soo dhigay ciyaaraha ku aadan kommentiyada qosolka iyo qaraaxada aan soo xilan doono iyo dadka sida fiican markaasi kaga dhiibanaya fikradahooda intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa dabcan barnaamijkan ugu talagalay in aan ka hadalno Manchester United iyo Arsenal haddaba asxaabta YouTube-ka maxaa ka qaldan ayaad is leedahay markiina waaye Arsenal iyo Manchester United maxaa ka qaldan